عيسى وعيسى منا نين عرم بدهب تاي ونهان سوماليان aad bay muhiim noogu tahay aaminsan Okay. odarkaysaan maanta tiraa Soomaalidu isma tiriso tiro koob ay laga sameeyeen haddana intaa badni laakiin baan mid ugu kasta faanay. maanta markaad u tagtid wuxuu ka odhani anaa ugu badan anaana ugu dhul badan tahay waxay keentay ficiltan jirin oo negative intii aanad noqon madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida of course nolol baad lahayd, shaqooyin baad soo qabatay kala duwan, doorar kala duwan baad nolosha ka soo ciyaartay. Waxaasoo dhan waxay sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka maanta ayna hor fadhiya. nidaamkii ka jiray ayaa ugu wacan inta badan oo meelo colaadeed maadaama ay ahayd dadka inta badan waa la isku mashquulin jiray oo mid duurka joogi iyo mid daba caymado oo daba cararo maaragtay la halgamo sidaa oo kale miisaaniyad nabadgelyo keliya oon lagu baxsho oo waxyaaba yaraatee baahida deegaanka wixii loo baahnaa ka jawaaba may ahayn dadkeenuna inta badan waxaan yaro dareemaa maadaamay nabad darrada ka jirta deegaankeena iyo waddanada jaarkeenaba ay aada u saameysay Soomaalida deegaanka isbeddel baa ka dhacay deegaanka Soomaalida. Waxaa isbedelay nidaamkii, waxaa isbedelay heer federaal, heer deegaan baa isbedelay, wax kasta uu isbedelay. Arrintaasina ay abuurtay dhaqdhaqaaq ganacsi, xorriyad hadal, dhaqdhaqaaq bulsho, isku socod bulsho, bulshadii oo dadka kale Soomaalida isdhexgal toos ay leeyihiin. Damac dadkii ku abuurmay in xuquuqda ka maqan ay ku baraarugaan, ay doontaan ka hadlaan. Arrimahaasi ma arrimo si dabiici ah u dhashay baa mise waa arrimo siyaasado idinku aad samayseen ka dhashay bay kula tahay? xiriirka aad la leedahay bulshaduna waa triangle maaskii aad la lahayd waad la sii yar fogaanaysaa oo sii yara dhuunaanaya oo dad yar oo kooban oo isku xidhnaanaysaa maaragtay ayaa isku xidhnaanaysaa waay laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan inta badan qadariyo aan lahaan aniguna aan meel siiyo waxaa ka mid ah in accessible loo ahaado oo social attachment-gaagu mar kaste jiro oo dareemaya meelo kala duwan markaan tigno qaar badan baan ku niraahdaa nima imanayna dadkaan nagu dareynay nagu dhalinyaro maadaama deegaankeena qaar baa inagu yidhahdeen xitaa nala kaftamo maad naga joogtaan inta waaweyn noo soo dir gaashareeyo waxaa badan marka dhowrkii arrimood ee kuu sheegayay waa nabadda waxyaa isbeddel ka bacdi oo si buuxda u hana qaaday iyo dhaqaalaha sidoo kale oo isdhexgal dhaqaale oo ballaaran deegaankeena uu ka hana qaaday uu ka mid yahay run ahaan baahi badan oo hadda gobolka jirtay baa jirtay dadkeenu ay cabanayeen tusaale ahaan bunuugta oo kale ma siin jirin waxaa ma aha oo Etoobiyada kale waxaad arkaysaa bunuugta ayaa dhaqaalaha inta badan ka geystay anaga ma jirin maadaama dadkeenu muslimiin yihiin ay jirin bunuug iyaga u adeego oo islaamiga laakiin waxaad arkaysaa hadda in bunuugtii ay jiraan lacagihii lagu ogolaaday xitaa kuwa islaamiga oon ahayn inay window ay fureen ay dadkii maaragtay maanta diyaariyeen ku soo dhawaada saaxiibayaal fadhi kale oo ka mid ah xalqadaha ama taxanaha Buundo. Fadhigan waxaan kaga bogan doonaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Cusmaan. Madaxweyne soo dhow. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fadhigan. Waa fadhi aan xiiseynayn inaan wax badan oo maaragtay macluumaad iyo xogaa kaga helno shaqada aad dadka iyo dadweynaha iyo deegaanka Soomaalida u haysaan adiga iyo hogaaminta kale ee aad hogaamisaan. Qaybta hore ee fadhigeena waxaan ku qaadanaynaa wax adiga kugu saabsan. Dadka madaxda ah ama dadka muuqda ee dhinacyada kala duwan ee nolosha ka muuqda inta badan mujtamacu wuxuu arkaa ama laga yaabaa in lagu baraarugo marka ay xagga sare tageen ama iyagoo talinaya ama iyagoo hogaaminaya qayb nolosha ka mid ah. Laakiin inta badan ma aragno wixii dhacay ama wixii ka horreeyay intaanu qofku booskaas soo istaagin.
intii maanad noqon madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida of course nolol baad lahayd shaqooyin baad soo qabatay kala duwan doorar kala duwan baad nolosha ka soo ciyaartay waxaasoo dhani waxay sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka maanta ina hor fadhiya yaraanta haddii aan dib kuugu celiye markaad ababaysay eed soo kobcaysa marna ma ku fikirtay inaad maruun talin doontid oo dadweynaha intaa leeg iyo mas-uuliyadda intaa leeg aad dabar ku ridin doonto bismillah way mar labadood mahadsan tahay maxamedow kulleen bilowgii macnaha siyaasadda uma malaynayo Soomaali ama Afrikaan waqti xaadirkan hadda imika ku riyoonayo oo isagoo yar islam siyaasi baan noqon ama waddan baan u talin hadday jiilka imika ahayn laakiin jiilkii hore ama waqtiga iyagii inta badan ma jirin oo dee wax la bartayba maaha dhaqan ahaan dowladaha hore u maray laakiin waa wax jira oo dhaqan oo dadka waa lasoo barbaarinaya oo iskuulla loogu talagalay baa jira oo jaamacadaha ay galaan high schoolkay ka bilaabaan jaamacadaha ay maaragtay wax ku bartaan kabacdi qaabkaabaa loo diyaariyay inay hogaamin noqdaan inta badan waddanada Yurub way ka jirtaa waddanada ilbaxa ee maaragtay reer galbeedkana waa laga hela laakiin xaggeena may arrintahay marnaba tu suurtoobaysa ma inta badan waad garanaysaa hogaaminta imika joogtaa marmar waxaad arkaysaa niman ninkuu garanayo is leeyahay waxbuu qabanayo ayaa meel uu jooga looga yeedha marka weligay ismaan dhahayn anu siyaasi baad noqon oo maaragtay bulshadaad hogaamin markaad yarayd hiwaayaadkii aad jeclayd ama waxyaabihii markaan weynaado waxaasaa noqon doonaayoo kale la odhan jiray yaraantii maxaa ka mid ahaa horta inta badan aniga waxaa ii dhowaa waa macallin unba macallimiintayda weliba macallimiinta ugu fiican ama kuwa dee noo noqon kara dad maaragtay tusaale ah oo lagu dayan karo ayaan markaan inta badan hadda imika xasuusto macallimiintii aan inta badan isku dhaweyn ama kuwii maaragtay aan maadadiisa aan aada u xiiseynay inaan ku hamiyo macallinka inaan noqdo de dadka bulshada mustaqbal kasta oo kale aan ugu adeego marka wax kale oo run ahaan waqti xaadirka ku dhiirigelinayo oo u yaraaba inta badan iska yaraa exactly looyinka millennialskeed ee 80-maadkii wixii ka dambeeyay dhashay waxaad moodaa waxay wacyi u heleen waxay fursad u heleen waxyaabo kala duwan oo abuuraya carinaya hamad kale marka waa runtaa oo xilligaad idinku korayseen wax badan oo kala duwan oo la kala dooran karo qofka hamad geliya ama iska yaraa markuu qofku yar yahay sidii geedka uu samaysmayo waxyaabaha qaabeeya siduu u ekaanayo waxa ka mida qoyska uu ka soo baxo iyo waalidka korinaya qiyamka iyo akhlaaqiyaadka ay waraabiyaan mid ama laba haddii aad ka xasuusato akhlaaqiyaadka iyo asaaliibta aad kala timiday usrada aad ka soo baxday mid ama laba ka mida akhlaaqiyaadka aad is leedahay kuwaasaa udubdhexaad noo ahaayo lanagu khasbay oo lana waraabiyey yaraantii oo ilaa hadda qaabeeya si aan u fikiro sidaan u dhaqmo sidaan u hadlo iyo qofkaan ahay maxay noqon karaan horta si guud bulshadu qoys ayaa maaragtay ka bilaabantaa waddan iyo bulsho badan marka la yahay ama si guud community waxaa sal u ah maxaan ku dhahday qoyska qoyska dhaqankiisa iyo habnololeedka ayuu ilbaxnimada waddanka ha noqoto horumarka waddanka ha noqdo inta badan uu ku xidhaya marka waxaan xasuusanayaa anigu inta badan waxyaabihii aan isleeyahay waan ka dhaxlay qoyskayga si gaara
waxaa ka mid ah isdhexgalka, wada noolaanshaha, wadajirka. oo aanu in badan Dirle baan ku noolaa, xaggaan waan in badan kusoo barbaaray iskuulkii ah dhexe iyo ka sare iyo ilaa jaamacadda kale meeshuu ku jiray. marka waxaad arkaysaa qowmiyado kala duwan oo wada nooshihiin oo jeer tihiin. sidoo kale diimo kala duwan baad arkaysaa, dhaqamo kala duwan baad ayaad arkaysaa, luqadu sidaa oo kale weeye. marka wax cusub uguma aha waxyaabaha markaad weynaatid uun aad meel un ka arkaysid ood kabacdi yara didaysid. marka waxyaabaha maadaama bilowgii aan la soo qabsaday, run ahaantii wax badan bay ii tareen inaan siyaabo kala duwan bulshada kala duwan aan ula dhaqmo. taana inta badan waalidada ku dhaqmi jiray. waxaan aan xasuusanayaa gurigeega 4-5 luqadood baa lagaga hadli jiray. wax strange ah ma jiro. hal daqiiqad baad afka ku hadlay, afka hal daqiiqad haddana afka laad ku hadlaysaa. taa keliya maaha in haddana wada noolaanshaha hadda waqtigaa sida imika ma aha, waad iska garanaysaa oo in yar noloshu iska privacy waa iska bad ma jirin wax oo digiina adu keliya ma lihi. waa laga qadaynaya ka qadaynaya adiga u dhashay maaragtay ka hor qadaynaya lagu oranayo war adiga waa soo daahdee qada laguma hayo. in badan bay jirtay waxyaabaha. marka run ahaan xamilka iyo isdhexgalka iyo fikirka kale kaa duwan aqbalkiisa waxyaabahaasaa maaragtay aad iyo aad waxyaabaha inta badan aan oran karo waanu ka dhaxlay run ahaan oo dhaqan aad u fiican ah. sidee bay markaa dhaqankaa yaraantiina qoyska aad ka qaadatay inaad xamil yeelatid oo bulsho kala duwan aad la noolaan kartid, sidee bay arrintaasi u qaabaysay hogaamintaada ama xirfadahaaga hogaamineed? horta faa'iidadiisa waxaan ogaaday jaamacadda markaan galay, jaamacadda Haramaya la yidhaahdaan ayaan dugsiga sare markaan dhameeyey galay. jaamacadda waxaad isku baranaysaan arday deegaano kala duwan ka yimiday, luqado kala duwan ku hadlaya, diimo kala duwan haysta, miyi iyo magaalaba iskugu jiro. inta badan marka meelo lagu cusub yahayna isfaham dhammaystiran intuu imanayo dagaalaha jira, meel kasta uu ka jira. dagaalada dadka maaragtay Dirdhabo oo kale iyo Harar oo kale iyo magaalooyinka waaweyn ka yimiday dhib kuma ahayn oo maaragtay xamilka magaaladooda ku soo barteen oo waayo dadka kale waa strange oo inta dadka kale martibay ku yihiin. markii aad luqadaad aad u hadda imika ku hadlaysato ka duwan markaa aragtid waa yar dadaysa. diin sidoo oo kale marmar waxay gaadhaysa in laysku dhacabo oo qabiil iyo reer iyo deegaan loo kala safado. marka anaga inta badan dad iska neutral oo mid kasta weliba kugu xisaabtamo kuma garanaya idaane maadaama luqadiisa ku hadlaysid wuxuu qoran warkaayo waa kolleenba waa anaga dantiibu maaragtay oo lagu xisaabtamay iska dhici karta. marka run ahaan dulqaadnimada oo waad garanaysaa inta badan dadkeenu adduunkaba dee dadka ugu ilbaxsan dulqaadkoogu aad maaragtay u fiican yahay oo dad aad dulqaad badan weeye, dulqaad badan. xadaaradda iyo albaxnimada sidoo kale, isdhexgalka, wada shaqaynta, isku tanaasulka, dareen oo la yeelatid tusaale ahaan kuwa adiga kalaati maana kuwa aan ku ekayn inaad dareenkooga fahantid, inaad meeshoodoo kale aad u istaagtid oo de waxay dareemayaan iyo waxay rabaan maaragtay iyo baahidoodaba inaad ka warhaysid. waxyaabo badan ay ku tarayaan baa jira. ma jiraa wax shaqo kasta oo aad qabato ay khasab tahay inuu ka mid noqdaa? of course anu iskuulka markaan sidaa uga soo baxay 7 bilood baa u badan oon khabiirka ahaa ismaamulka Dirdhabe. nolosheeda intii kale oo dhan oo u dhow 17 sano 18 sano
waxaan ahaa un hogaamin magacaabis Okay. kala duwan. Okay. Marka dhaqan baad iska yeelanaysaa intaa oo dhan haddaad siyaasadda kusoo jirtay dhaqan kullin ku kooban oo inta badan shaqooyinkaaga iyo adeegii dadka siinaysid kugu qasbaya iska jira. waxaan aaminsanahay ama shakhsiyan markaan khabiirka ahaa inta badan laba arrimood unbaa ugu muhiimsan ood qabanaysa. khabiir baa tahaydan waa wax oo xilliga waajibaadkooga wax kaa saaran ood ula tegaysid mas-uulkaaga iyo wax lagu soo siiyo lagu leeyahay waxaa dhammaystiro waxaa qaban. labadaa arrimood wax ka baxsani ma jiro. labadaa arrimood oo midna waxaa la yidhaha civil servant markaa tahay labada gacmood baa lagu kala hayaa sidaa iyo markaa mid xagga sare kaaga imanaya ood qaadanaysid iyo mid ood haddana feedbackii ku celinaysid ood qabanaysid oo hogaamintaadii ay kula xisaabtamayaan. marka wax adiga personally aragtiyahaaga ama mashaacirtaada ama waxyaabaha shakhsiyan aad qadarisid ee qof ahaan kula weyn oo adi dookaaga ah oo ka baxsan waajibaadka shaqo kastood soo qabatay. profile cajiibaad leedahay. shaqaale hoosaad baad kasoo bilowday, maayir baad kasoo noqotay magaaladii shaqaale hoosaadkaad kasoo bilowday Diridhaba. federaalka Ethiopia aad u dalacdo waxaad noqotay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee federaalka Ethiopia, haddana madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida. si xaragalaad u fuulaysay maaragtay salaanka. marka waxaan aad u xiiseynayaa inaan maqlo hadday jiraan wax adiga qof ahaan kula qiimo weyn oo aad qadarisid oo waajibka shaqo kastood soo qabatay ka baxsan laakiin adu aad dooratid inaad shaqada ku dartid si ay markaa aad uga hesho shaqada ama qasdigii aad ka rabtay ama ugu yaraan qanaaco waxaad qabanayso aad maaragtay si qanaaco leh u qabanaysid. waa run oo kullin bulshadan aan hadda iminka u adeegayno un baan ku dhex nooleen iyagaan kasoo dhex baxnay siyaabo kala duwan si taban iyo si toganba waad saameyn waad ku leedahay kulliinba xiriir joogtaana waad la leedahay. inta badan aan waxyaabahan danayn jiray run ahaan shaqooyinkaygana in aan de sidaan anu wax u rabay ii caawin jiray waxaa ka mid ahaa inuu mar kaste albaabkayga u furnaado qof kasta oo ii baahan. Okay. waad garanaysaa oo dadkeenu Soomaali markaanu nahay wax yar hadduu haysta iyo wax weyn hadduu haystaba waxay isku dayaan mas-uulka ay ugu sarreeya isleeyihiin waxbaa qaban inay u tagaan. Exactly. dad meelaha kale u tilmaamtid wax kugu qanacaya haba yaraatee ma jiro. wuxuu moodayaa in la quursanayo haba yaraatee. marka inta badan inkasta oo la yidhaahdo markii aad jaranjaradu ay maaragtay iska sii fogaato xiriirka aad la leedahay bulshaduna waa triangle maaskii eed la lahayd waad kasii yar fogaanaysaa oo sii yara dhownaanaya oo dad yar oo kooban oo maaragtay ayaa isku xidhnaanaysaa. laakiin waxyaabaha igu muhiimsanen inta badan qadariyo aanu run ahaan aniguna aan meel siiyo waxaa ka mid ah in accessible loo ahaado social attachmentigaagu mar kaste jiro ku doono kii aad khabiirka isla ahayd haddii aad karaysid inaad sanadkii xitaa mar heshid. khabiirku haddaanu jilcino dadkaan deegaanka aqoonsaa u badan lahayn waa shaqaale hoosaad meeshay doontaba ha noqoto sectorkay doonto ama xafiiskay doonto waa markaad jaamacadda saa uga soo baxdid dee waxba aad kala garanayneed qalin iyo lagu dhiibayo maxaan ku dhahdaa lagu oranayo ruuxaad soo baratay waxaa uu ahay waxaa qabo. waa arrin dadka badankiisu gaar ahaan dadka khayraadku ag yaalaan ama wax awood ka mid a haystaa ayna u wada sinayn. waxaa laga yaabaa dad badan inay arrintaa u micnaystaan in markay wax kuu kordhaan in dadka laga sii go-aa inay tahay sida awoodda loo ilaaliyo. laakiin adiga approachkaaga waa cagsiga in dadka mar walba la ag joogo loo dhawaadaa inay very interesting. xaggaasaan kusoo koobaynaa madaxweyne qaybtii personalka ahayd. waxaan jeclaan lahaa qaybtan dhexe inaan ku yaro eegno arrimaha la xidhiidha siyaasadda ama siyaasadaha qaybaha kala duwan ay ka leedahay dowladda deegaanka Soomaalida. waxa war lagu farxo ah in dhibaatooyin iyo culaysyo daba dheeraaday oo riiq ummadda ku reebay laga nafisay dhawaanaha. isbeddel baa ka dhacay deegaanka Soomaalida.
waxaa isbedelay nidaamkii, waxaa isbedelay heer federaal, heer deegaan baa isbedelay, wax kastaa uu isbedelay. Waxyaabaha si degdega loo dareemi karo waxaa ka mid a cabsidii laga qabay dowladdu inay meesha totally ka baxday. Arrintaasina ay abuurtay dhaqdhaqaaq ganacsi, xorriyad hadal, dhaqdhaqaaq bulsho, isku socod bulsho, bulshadii oo dadka kale Soomaalida isdhexgal toos ay leeyihiin, damac dadkii ku abuurmay in xuquuqda ka maqan ay ku baraarugaan, ay doontaan ka hadlaan. Arrimahaasi ma arrimo si dabiiciya u dhashayba mise waa arrimo siyaasado idinku aad samayseen ka dhashay bay kula tahay? deegaanka isbedelka ka hor kullen xisbi baa jiri jiray oo xisbiga abaan ka mid ahaa Okay. oo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya la odhan jiray. Waay. siyaabo kala duwanna wada shaqayn ayaan ula lahaa oo dadar labana maadaamay hogaaminta joogta ee Soomaalida waqtigaa xilka haya inta badan xisbigana xubin bay ka ahaan jireen, xubin keliya maaha inay weliba ama golo dhex uu noqon jiray ama guddi fulin buu noqon jiray. Tahayna waxay ku siinaysaa in aad fursad u yeelatid qaabka deegaanka loo maamulo iyo shaqooyinka deegaanka jira sida ay yihiin. Marka waxaan hadda iminka dareemaa run ahaan dee aad ugu tiraahdo dhowr arrimood bal isbedelka ka bacdi waxyaabaha dhacay ama waxa iska bedelayba saad sheegtay dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadaba. deegaankiina waad garanaysaan oo intaa sano meel colaadeed buu ahaa, socodku dhib baa ka jiray ahayd, horumarku aad buu u liitay. deegaanada kale marka lagu barigo deegaanka ugu liitaan ahay haddana waa deegaanka intaa la eegay ballaaran ee deegaanka Oromia. Hadda iminka wax yar ayaan ku kala duwanahay xagga balarka marka la eego. qowmiyadda waa qowmiyadda saddexaad marka Oromia iyo deegaanka Amxaarada ama qowmiyadda Amxaarada laga reebo qowmiyadda saddexaad baa. Marka deegaanka intaa la eeg meeshaan ku naalana ahmiyad uu leeyahay strategically waad garan kartaa. Anagoo sidaa ah haddana waxaad arkaysaa in aan xagga horumarka marka la sheego dabada aan xagga dambe kaga jirnay deegaanada kale oonu aad ugu hooseyn. waxyaabo kala duwan baa sababay. Waxaan odhan karaa dee nidaamkii ka jiray ayaa ugu wacan inta badan oo meelo colaadeed maadaama ay ahayd dadka inta badan waa la isku mashquulin jiray oo mid duurka joogi iyo mid daba caymado oo daba cararo maaragtay la halgamo. sidaa oo kale miisaaniyad nabadgelyo keliya oon lagu baxsho oo waxyaabo yaraatee baahida deegaanka wixii loo baahnaa ka jawaaba may ahayn. dadkeenuna inta badan waxaan yara dareemaa maadaamay nabad darrada ka jirta deegaankeena iyo waddanada jaarkeenaba ay aad u saameysay Soomaalida deegaanka ku nool. isbedelka ka bacdi waxaad arkaysaa dhowr arrimood oo run ahaan isugu tegay. kow, dadka oo ka daalay colaadii oo aad u raba inay maaragtay nabad helaan. dadka oo horumar la'aan aad maaragtay ay ka jirtay oo raba in horumar iyo baahida ka jirta aagiisa wax laga taro, iyo sidoo kale hogaamin diyaar u ah baahida ka jirta bulshada isku dayaysa wax ka qabata ayaa maaragtay iskaashaday. iyo sidoo kale dowladda federaalka oo run ahaan daacadka ah oo hadda ka hor damay jiray faragelin aad u ballaaran baa jiri jiray. taa oo daacadka ah oo haba yaraatee wax dhib ah oo maaragtay faragelina ka jirin, iyo ciidan maaragtay deegaankaaga intuu ku yimaado ku maamulo oo siduu doono kula dhaqmo oo haba yaraatee meeshii ka baxay ayaan isleeyahay waxyaabo badan waxyaabaha sahlan. marka dhowrka arrimood ee maaragtay iswaafaqsan ee iskaashaday ayaa si buuxda u dardargeliyey nabadda deegaanka. tusaale ahaan haddaan soo qaado marka
arrimaha ugu muhiimsan hadda iminka 6 sanadood ka faa'iidnay waxaa ka mid ah isdhexgalka nabadda oo annaga iyo federaalka security integration oo run ahaan aad si ballaaran deegaankeena uga dhaqangal oo ay dadkiina inta badan ku nisteen sidoo kale intay nabadgelyo daradii ka jirtay ma lagu mashquulsanaa laga baxayo oo dhanka horumarka loo wareegay deegaanka Soomaalidu hadda marka la eego wadanka Itoobiya uu ka tirsan yahay iyo mandaqada uu ku yaalay geeskan Afrika xiisado iyo fadqalalooyin badan baa maaragtay ka aloosan meelo badan oo xariiraha deegaanka ah wadnaha afarta lagu hayaa ama tensions qabaa'il baa jira ama tensions qowmiyadaa jira ama isku dhacyo dowladaha baa jira deegaanka Soomaalidana si la xasuusto wuxuu ahaa waqti aan dheereen ka hor meesha intaa hadda uu ka badbaadsan yahayba ay ku kulanto isa maxaad ku macnayn lahayd in deegaanka Soomaalidu maanta xasaasiyaadka wadanka dhexdiisa iyo hareerahaba ka jira uu ka nabad qabo oo waliba xilliyo runtii ay tensions aad u waaweyn iyo conflicts jireen wali uu badbaado iyo nabad iyo xasilooni sii hayay deegaanka walina sii haysto si guud mandaqada dhaqdhaqaaqa ka socda hadda iminka ka jira say doontaba ha noqoto haddii ay ku dambeyn doonto amni iyo deganaansho iyo maaragtay isdhexgal iyo wadajir faa'iido noo yahay oo deegaanka ugu horeeya ka faa'iideysanayaan ayaan ka mid nahay haddii ay colaado horseedaan sidoo kale dhaqdhaqaaqa iyo saameynta guud ee iminka jirta sidoo kale dadka ugu horeeya ugu nugul baan nahay inay saameyn tahay iyo siyaabo kala duwan bay noo saameyso laakiin waxaad moodaa waddanka Itoobiya waddan aad u weyn weeye hadda iminka waxaa lagu jiraa isbeddelka ka bacdi markii la yimid kulleen jaranjaro kala duwan baa laga bala maray laakiin jaranjaradooyinkii bilowgay ayaanu ku jirnaa baan aaminsanahay oo iminka aanu ka gudbayno marka faceka ugu horeeya ee transitionka ama kala guurka inta badan waxyaabaha noocay baa lala kulmaa oo way iska jiri karaan nabadgelyo daraa dhici kartaa isfahan daraa dhici kartaa waxyaabo badan maanta heshiis kuma nihin oo Itoobiya waddan ballaaran saan ku wari qowmiyaduhu meelo badan kala shaki baad arkaysaa inay jirto luqadihii baa la isku yardiidan yahay astaamihii waddanka ayaa mar la iska su'aalayo la isleeyahay waxaan anima matala waxaan dad gaaru maaragtay matala marka dhisida qaran marka la wadana sidoo kale adduunku si waa la soo maray oo processkan mar hore la soo dhaafay annagu dhisiday waqtigii milig baa la isku dayay baa la yiraahdo lama dhameystirin laakiin oo waliba si xoog ah daymanka wadannada Yurub tood arkaysaa dad badan baa maaragtay la baabaashay oo qaranka lagu dhisay markaas darteed hadda iminka oo waqtigii de lama joogo oo hawsha iminka lama gali karo laakiin in la isfahmo in qaran at least la isku soo dhawaanayo la isfahmayo inuu jiro meesha oo maaragtay waxyaabaha ina midayn karaya isku dhaweyn karaya laga shaqeeyo waxyaabaha hadda iminka la bilaabay ka mid tahay marka deegaan ahaan marka si guud loo eego culaysadii ka jiray ka soo kooyay hadda ka hor dadku ay tabanayeen laakiin waxyaabaha ay inta badan cabashooyinka waaweyn ee ka jiray hadda iminka dadka la tabanayaan ma jiro marka waxyaabo badan oo dadka colaado kala duwan u horseedi kara inay jiraan uma malaynayo inta badan waa la saadaaliyaa waxyaabaha dhibta keeni kara laakiin deegaan ahaan cadaalad darro meelo kala duwan ka yar dareemi karto iska jirta oo hadda ka hor dhacay siyaabo kala duwan baa la isku dayay inaan anagu horumar ahaan sektaro kala duwan intaan u asaasnay daraasaado kala duwan la sameeyey la isku dayay in cadaaladii wax laga qabto cadaalad darradii hadda ka hor dhacday laakiin still waxyaabo miiska ay noo saaran oo weli dhamaystirin baa jira oo mar dhow laga yaabaa inaan hawsheeda galno
waxyaabaha waxay ku tusaysaa haddii qaabka wax loo wado inta badan dadkeenu waa dad Soomaali oo dee waa iska garanaysaa oo dad iska caadifadaysan oo laba qof hadday maanta isla hadlaan berri ka maalin haddana kala boodayo isku dhici kara iska jiraan laakiin inta badan waxaad arkaysaa waxyaabaha inuu aad u soo yaraanayo uu aad u soo yaraanayo marka waxa ina midaynaya ka weynka ayaa inta badan la arkaa in xooga la saaro marka nabadda ka jirta hadda deegaankeena run ahaan kaalinta ugu muhiimsan bulshadeena weyn wax ka qaadatay kaalinta labaad ciidamada kala duwan ee deegaankeena hadday yihiin milishaya hadday yihiin booliska ayaa ugu muhiimsan iyo hogaaminta oo run ahaan sidii loo baahnaa ciidanka iyo bulshada inay wada shaqeeyaan in ciidanka nidaam lagu maamulo oo shacabkiisa maaragtay ay u damqadaan ay u adeegaan in laga dhigo maaragtay hogaamintuna kaalin aad u muhiimsan ayay ka ciyaartay madaxweyne waxa kaloon isleeyahay wax ka weydii shacabka deegaanka Soomaalidu si guud waxaad moodaa dareen bay qabaan in lagu soo durkayo la maagan yahay maaragtay dhulkooga damac kaga jiro dadyowga kale maaragtay jaarka ay yihiin iyaga duulaan lagu yahay dareen noocaasaa jira dareenada marmarka qaar waxaa la arkaa iyagoo ficil ahaan ka imanaya dadyowga jaarka ee maaragtay deegaanka xuduudaha lale dareenkaas shacab ay dadku ka qabaan arrimaha dhulka dowladdu dareenkaa ma ka warqabtaa hadday ka warqabtase ma jiraan siyaasado cadcad oo dadka inay ogaadaan ay tahay si ay u nafisaan ugu yaraan way iska jiraan dareenada way soo babaxaan hadda marar badan oo iska soo laalaama hadda kahorna ugu jiri jiray dareemada oo de adagii arkii waad xusuusanaysaa siyaabo kala duwan baa lagu maareeyey oo marar waxaa jira xitaa aftiyo kala duwan la qaaday ma jirtay mararka qaar in dhul deegaanka Soomaalidu leeyahay executive maaragtay branchka ay bixiyeen oo cid kale siiyeen si guud waxaa jiray ahayd meelo lagu murmayey oo dastuurka Etoobiyana wuxuu dhigayaa meelaha caynka ay hadday jiraan in afti maaragtay dadka afti laga qaado iyagu de meesha ay rabaan ay sheegtaan si dimuqraadiyadda meesha loo bato in la raaco maaragtay qaabka maamulka loo hoosgeeyo marka hadda kahor way dhacday oo waxaan u malaynayaa 20 sano ku dhawaad waqti gaadhaya way dhacday arrintan laakiin xaaladda imika jirta run ahaan deegaanka ugu ballaaran ee la leenahay xuduudda waa deegaanka Oromiya iyo deegaanka Cafarta sidoo kale iyo ismaamulka Dirdhabe siyaabo kala duwan ayaan wada shaqayn ay ka jirtaa deegaanka Oromada guddiyaal kala duwan oo run ahaan arrimaha weliba meelaha xuduudaha horumar waara oo labada bulshada dan u ah inay meesha ka jiraan inta badan dadka waxa ay dhibtu ka kacdaa waa horumar la'aanta iyo baahida ka jirta horumarka weliba inta badan oo adeega asaasiga way u badan tahay ayay dhib ka jirtaa marka waxyaabaha inta badan waxaa la sameeyey in xafiis si wada jira loo maamulo la asaaso sidoo kale miisaaniyad loo qabto daraasaadyo kala duwan sameeya meelaha ay baahidu ka jirta ay isku dhacdo maaragtay deegaan ama labada deegaan ama labada bulshada uu ka iman karo in laga hortago marka wada shaqayn aad u muhiima weeye inkastoo sidii loo baahnaa loo dhaqangelin oo saan kuu sheegay miisaaniyad dhammaystiran loo siinin xafiisyadii oo la empower garaynin laakiin waxaad arkaysaa dadaallo fiican inay jiraan waxaa ugu muhiimsana sidoo kale run ahaan hogaaminta hadda imika hogaamin labada deegaan joogto oo dhulboob ku jiro oo kaana maaragtay deegaanka Soomaalida aan riixi kara deegaanka Oromada aan riixi habeeraatay ma jirto xaqiiqda marka laga hadlana deegaan ma Soomaali maanta
dee qasab loo riixayo oo dhul laga qaadan karayo waad iska garanaysaa dadku qabiil baa dhulka loo degaa ma jirayso dad Soomaali oo xoog meeshay doontaba ha noqotee wax laga qaadan karayo inay jirayso uma malaynayo laakiin muhiimaddu waxa weeye in bulshada wixii saxa si fiican loo dhageysto oo looga jawaabo wixii kalena dee wacyigelin u baahan in at least dadaalada jira iyo waxyaabaha lagu xalinayo xitaa waxaan markay dhacaan in loo sheego oo wadada saxda uun maaragtay lagu maareeyo unbaa muhiim haatan xaggan dhaqaalaha anu yara dhaqaaqna madaxweyne isbeddelka heer federaal iyo heer deegaanba ka dhacay nafiskaa ka dhashay dhaqdhaqaaq dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq bulsho oo la arki karo ayuu deegaanka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ka sameeyey ma jiraan siyaasado dowlad ahaan meel idin yaala oo aad fulinteeda ku mashquulsan tihiin si loo abuuro deegaan ku habboon ganacsiga ama abuuraya jawi dhaqdhaqaaq dhaqaale oo xoogani ku iman karo waan ognaho soomaalida dhaqaalahoogu u guurguura miyadda iyo maalka soomaalidu marba meel buu tagaa mar halkan Dubai baa lagu soo ordaya oo la imanaya mar Turki baa lagu ordaya mar ma aragtay Kenya lagu ordaya waxaad moodaa weli soomaalidu meel ay dabada dhigatay miideeda iyo maalkeega iyo muruqeegu ma jiro and I think inay safe tahay inaan idhaahdo jigjiga meel uga habboon oo ma jirto dowladda qorshe ma ka leedahay in soomaalida adduunyada wareegaysay reer guuraaga ku noqotay ay hantidooda iyo maalkooga iyo muruqooga iyo maskaxdeedaba meel ay saldhigan karaan ay noqoto waa saxsan tahay waa arrinta ugu muhiimsan horta sal u ah inuu horumar deegaankeenna sidii loo baahnaa looga dhaqansho waa nabadda furaha dhaqaalaha nabadda wey markaa nabad hadday jirto Soomaali meel kasta ay joogto waxay isku day in meesha ay nabadda ka jirto ay dhaqaale ka samayso anoo hadda waxaan aaminsanahay caasimadda Jigjiga Soomaali meesha ay maanta ay ku nooshahay marka Nairobi laga yimaado meesha labaad ay maanta danaynayaan inay yimaadaan ay dhaqaale ka sameeyaan ay weliba kuwa badan inoo yimaadeen ay dhaqaale ka sameeyeen ayay tahay waan aaminsanahay taana waa nabadda hadda la helay iyo sidoo kale siyaasadaha hadda imika jira deegaanka mudnaanta la siiyey in horumarka xooga la saaro marka dhowrkii arrimood aan kuu sheegayay waa nabadda waxyaaba isbeddel ka bacdi oo si buuxda u hana qaaday iyo dhaqaalaha sidoo kale oo isdhexgal dhaqaale oo ballaaran deegaankeena uu ka hana qaaday uu ka mid yahay run ahaan baahi badan oo hadda ka hor ka jirtay baa jirtay ahayd oo dadkiinu ay cabanayeen tusaale ahaan bunuugta oo kale ma siin jirin waxaa maaha oo Etoobiyada kale waxaad arkaysaa bunuugta ayaa dhaqaalaha inta badan ka geystay anaga ma jirin maadaama dadkeenu muslimiin yihiin ay jirin bunuug iyaga u adeego oo islaamiga laakiin waxaad arkaysaa hadda in bunuugtii ay jiraan lacagihii lagu ogolaaday xitaa kuwo islaamiga oon ahayn inay window ay fureen ay dadkii maaragtay maanta diyaar u yihiin marka arrinta labaad ee ugu muhiimsan nabadgelyada ka soka ee deegaanka isbeddelka ka hana qaaday sidii loo baahnaa u dhaqan galay run ahaan bilow fiicanna ka jira waxa weeyaan arrinta dhaqaalaha weliba xooga waxaanu saarnay in sectorka private mudnaanta ama hogaaminta laftigeedu inuu liid gareeyo dhaqaale waayo adduunka markaad aragtid meel ay dowlad keliya oon horumarisay ma jirto marka taa in xooga la saaro waan ku tala jirnaa waxaad arkaysaa iminka weliba fursadaha ka jira inaan soo jeedino aan dadka ku dhiirigelino waxaa ka mid ah beeraha maanta beeraha deegaankeenu
Ethiopia marka la eego waxaan u malaynayaa ilaa 40 milyan oo hektaar baa dhul maaragtay la qodan karaa. Dhulka markaad eegtid ama hadduu inta laga yaaba inaan tirada ku saxsanayn, laakiin deegaankeena ilaa 10 milyan wax ka badan oo dhul oo waxaan leenahay hektaar oo la qodi karo oo beeraha maaragtay munaasib ah. laakiin sidii loo baahnaa kama faa'iidin. Deegaan ahaan waxaan ugu imanay 300 oo hektaar keliya ayaa la qodan jiray. Maanta waxaan qodanaa 1.2 milyan oo hektaar. Waxaanu sanad kasta qorshaysanaa oo ka goosanaa ama isku daynaa inaan ka soo saarno 31 milyan oo kintaal. Marka haddii sidaa loo sii xoojiyo private sector kuna sidoo kale inay join karaya. Hadda waad arkaysa maalmo dhaweyto berberiis goday laga beerayay iyo maaragtay hadhagaar. Tay waxay ku tusaysaa haddii aan haysano dhulkii, biyihiina aan haysano, khayraadkiina uu jiro sidoo kale bulshadiina aan haysano, inaan intaa isku geyno oo wax la soo saaro wax annaga maaragtay nala jiro inagu xidhan bay ka dhigaysaa. Marka arrintaay waa muhiim weeye. Kow waa beeraha, laba xagga wax soo saarka warshadaha xoogga aan saarnay. Dee isbeddelka ka bacdi warshado badan baa la aasaasay oo ilaa 300 ka badan. Laakiin sidii loo baahnaa still deegaankeena warshado muhiima kama jiraan. Weliba warshado aad u yaryar weeye. Marka warshadaha inay iyagu ay wax isku taraan, iskobciyaan oo maaragtay transform sameeyaan baa loo baahan yahay. Kuwa waaweyn baa loo baahan yahay inay deegaankeena ka jiraan. Laakiin meelo gaar oo astaameynay baa jira. Taana inaan sii xoojino mustaqbalka way qorshahay noogu jiraan. Si oon waxyaabaha dibadda ka soo galaya aan deegaankeena gudihiisa ku samaysan karno. Shaqaale abuur badan inoo samayn karo. Lacagaha doolarka ama lacagaha qalaadka ee adag ee na dhibayana sidoo kale si fudud aan uga maarano. Marka taana waa arrinta ugu muhiimsan weeye. Arrinta labaad, arrinta saddexaad waa xagga khayraadka xoolaha waad aragtay. Deegaanka ugu xoola badan baan laakiin xoolaheena sidii loo baahnaa ugama faa'iideysan. Marka xoolaha sidii hadda ka hor aan u jiri jirnay baan u jirnaa oo dee xoola dhaqatadii caadiga ee eryanaysay xoolaha baan u nahayn. Laakiin sidii loo baahnaa in looga faa'iideysto waa in falowgeega la kala taana waan isla qaadanay barnaamij dhaqo oo dheefso la yiraahdo ayaan hadda xoog ka saarnay. Waxaad arkaysaa maanta sanadkii hore kun la siinayay 12 bir maanta 8 bir iyo 9 bir baad ku helaysaa. Sidoo kale hilibkeyga lama heli jirin hadda, laakiin meelo badan baad ka arkaysaa. Caanaha sidoo kale magaalooyinka waaweyn oo dhan waxaad arkaysaa geel la sameeyay oo caanaha magaalooyinka la keenay. Kalluun iyo malab baad arkaysaa oo inta badan hadda iminka xoogga aanu saarnay. Marka wax soo saarka xoolaha xoogga saarno ayaa noo qorshaysan. Arrinta kale ee saddexaad ee ugu muhiimsan waa service-ka ama adeeg sida maaragtay hoteelada, dugsiyada, hospitaalada. Marka taana inaan xoogga saarno waan ku tala jirnaa insha Allah. Marka si guud arrinta nabadgelyada, arrinta dhaqaalaha, si guud deegaankeena maaragtay waa la qaaday ee ugu muhiimsan run ahaan iyo arrinta siyaasadda. Saddexda arrimood ba isbeddelka ka bacdi waxyaabaha ugu muhiimsan ee deegaankeena si buuxda maaragtay la iskula qaatay bilow fiican iyo run ahaan isdiilo aad u ballaaran natiijadeeduna muuqato ayaad ka arkaysaa. Arrinta siyaasadda markaan ku soo laamo in badan aan kaaga faahfaahin waxaa ka mid ah hadda ka hor siyaasiyiin waad garanaysaa deegaanka intaa la eg siyaasadda marka la eego waddanka ama asxaabta waddanka hogaaminaysay ama kaalinta aan ku lahayn deegaanka aad u hooseeyay. Maanta ma lihi 100% waa la saxay, laakiin bilow aad u wanaagsan baa ka jira. Hogaaminta ugu sarsareeya xisbiga haddaanu nidhaahno Soomaali baa joogta. Wasaaradaha ugu muhiimsan Soomaali baa joogta. Hadda ka hor wasaaradaha lagu aamini jiray. Marka taa laftigeedu siyaasiyan waxaad arkaysaa in deegaankeena bulshadiisa, deegaanka beledkiisa iyo strategic location ku yaalo ahmiyad gaar ah uu yahay waddanka lana fahmay in maaragtay deegaanada cirifyada ku yaala centerka ay muhiim u yihiin. Marka deegaanka Soomaalida hogaamintiisa la eego madaxweyne ku xigeen wasiiro ama madax xafiisyeedo iyo inta ka hooseysa
marka da ahaan lagu qiyaaso deegaanada kale ee Soomaalida ee mandiqada ku yaala waxaad moodaa in deegaanku uu yahay hogaaminta ugu daayar arrintaas misleda saameynta wanaagsan ee deegaanka ka jirta waxbay kaga dartay misleda of course some element inay leedahay aan aaminsanahay waayo hadda iminka boqolkiiba dee taagan hayay wuxuu ahaa 90 iyo wixii aad u socday 90 ka sarreeya hogaaminta iminka joogta deegaanka waa first degree iyo masters wax ka badan marka dhalinyarada markaanu leenahay dad wax bartay oo khibrado leh shaqaday hayaana sidoo kale fahmi kara bulshadoodana dee xagga maaragtay commitmentkana wax badan u qaban kara inay yihiin baan aaminsanahay marka waxbarashada laftigooda dee qofku markuu wax barto qaabkuu fikirayay hadduu wax ka bedeli waayo waxyaaba yaratay ugu taalima jirto marka tahay inay caawisay baan aaminsanahay waan dareemayaa meelo kala duwan markaanu tegno qaar badan baan ku niraana nima imanayna dadkaan nagu daraynay nagu dhalinyaro maadaama deegaankeenu yahay qaar baa inagu yidhahda xitaa nala kaftamo nagu yidhahdo maad inaga joogtaan inta waaweyn uu noo soo dira gaashareeya waxaa dhaleen marka iska jiri kartaa laakiin deegaanka si guud markaad eegtid hoos ilaa kor isbedelka meelaha badan ee deegaanada kale lagama sameynin isbedel dhammaystir annagu kor ilaa hoos hogaamintii joogto dhan meesha way ka bixeen hogaamin cusub weeye waxay timid inta badanna dadka waxaa lagu xuleeyahay waxqabadkiisa khibradiisa waxbarashadiisa ka goonaanshihiisa waxyaabaha baa lagu xuleeyahay marka waan aaminsanahay inay waayo dhalinyarnimadu horta inta badan waxa keliyeed haysid waa xoog weeye marka taa haddii aad waddadii loo baahnaa oo aad u jahaysid waxaan aaminsanahay si muhiim waa loo isticmaali karaa waxaa kaloo madaxweyne xiise gaara leh iyaduna qabaa'ilka soomaalidu waa dad qabaa'il u samaysan oo qabaa'il ahaan isku xigtaysta oo isku urursada arrintaasi iyadoo wax badan oo wanaag looga faa'iideysan karo laakiin haddana waxay marar badan waxayba noqotaa arrimaha dhaliya colaadaha iyo fadqalalooyinka deegaanka Soomaalidu waxaa la odhan karaa waa malaha deegaanada dhifka ah ee qabaa'ilka Soomaaliyeed haddaanay ku wada dhanayn badankooga ay wada joogaan haddana grievances badan oo weliba colaad dagaal oo joogto ah oo weynaata lama arko xitaa power dynamicska kuloolanka awoodda oo marmarka qaar dagaal gaadha meelaha qaar deegaanada Soomaalida ee mandiqada ka mid ah deegaanka lagama maqlo marka waxa cajiiba in ummadda intaa leeg in la isu hayo oo maaragtay waxay wada leeyihiin ka dhaxayn karo oo ay si nabada ku wada noolaan karaan wixii tabashooyin ama dhibaatooyin jirana open communication ka samayn karaan arrintaa laftigeedu waxaan isleeyahay waa arrin deegaanka Soomaalida laga baran karo idinku ka hogaamin ahaan ma siyaasad la idinka baran karo Soomaalida kale aad la wadaagi kartaan baa jiro arrintaas ku gaadheen horta badan dadku waxyaabaha ay iskaga hor yimaadaan wax kale maaha waxaan aaminsanahay dhowr arrimood u leeyihiin waa xuquuqdiisa oo sidii loo baahnaa iyo siduu isagu dee xuquuqdu lahaa in loo dabaqo iyo maaragtay baahida ka jirta si cadaalada in looga jawaabo marka xukuumadda hadda iminka run ahaan waxyaabaha inta badan meelo badan la iskula qaatay in sidii loo baahnaa loo hogaamiyo waxaa ka mid ah arrimihii soo jireenka ahaa inta badan ay dadku isku haysaysteen in siyaabo kala duwan si degdega loo xaliyay kuwo backlog oo iska jira way jiraan oo u baahan waqti in la gasho oo wax laga qabto laakiin inta badan xal in la siiyey baan aaminsanahay ta kale sidoo kale cadaalad daradii jirtay iyo baahiyadii dadku kala tabanayeenna nidaam baanu isku daynay in lagu xaliyo tusaale laba arrimood oo muhiim ah ku soo qaadanay mid waxa weeye si guud xukuumad ahaan waxaan sameynay xafiis la yiraahdo xafiiska qorsheynta waxaan ka duulay wax kale ma waa in aan
inuu soo derso sidoo kale shaqooyin kala duwan buu leeyahay laakiin cadaalad darrada ka jirta distributionka ka jira deegaankeena daraasaado kala duwan oo cilmiyeysan inuu soo saaro anagoo ka duulayna kaana in meelaha ay baahida dhabta ka jirto meesha ay doontaba ha noqotay ama hay-adan ka keenno ama miisaaniyadda deegaanka aan gelino ama federaalku hayna caawiyo inaan isku dayno inaan mashruuca ama baahida ka jirta si degdeg aan u qabano anagoo ka duulayna daraasaadka dhammaystiran ee laisku sameeyo arrinta kale ee ugu muhiimsan waxaa weeye dadku tabasho badan baa ka jiray tacadiyo badan baa deegaankeena ka dhacay taayi inta badan commissionkii aanu sameynay commissionka guddiga waxaa la yidhahdaa tacadiga deegaanka hadda aanu ka hirgelinay oo baarlamaanka hoostaga daraasaad meel ay ka sameynin deegaankeena ma jiro dhacdooyinkii iyo tacadiyadii dadkeena loo gaarsiiyey si ay maaragtay usoo dhammaystiraan marka meelo badan siyaabo kala duwan ay dadku u kala cabanayeen wixii jiro oo dhan waa lasoo dhammaystiray siyaabo kala duwan ay dadku ku kala bogsadaan waa la isla qaatay ay ka mid yihiin wixii in tallaabo laga qaado wixii maxaan ku dhahdaay in la xuso oo qofka dee at least la yidhaahdo ruuxan uu kugu dhacay anaga maaha waxaan kuu samaynay laakiin waa nidaam jiray marka maxaad ka qabtaa uu yidhaahdo qofku dee ama waa iska cafiyey ama anagu aanu dhakhtar geyno ama sida oo kale aan la aqoonsado oo ama taalo loo sameeyo ama siyaabo kala duwan meel un wax lagu xuso marka taa laftigeedu wax badan baan aaminsanahay inay iisgaraysay tenshinadii ka jiray maaragtay deegaankeena laakiin soomaalidu meel kasta ay joogtaba waad garanaysaan oo dee wax u kala qarsoon ma jiro wax xaggaa ka dhaca xaggan inuu beri ka dhaco wax haba yaraatee ood u garanti garaynaysid ma jirayso laakiin deegaan ahaan frequency-ga ayuu xaggeena ku imanayo macnaha waqtiga degdegu ku imanayo xaggeena iyo intay la eg tahay laftigeegu aad bay u kala duwanta ismar aad bay u kala duwanta taa laftigeegu run ahaan shaqooyin muhiim ayaa laga qabto oo inta badan waxaanu sameynaa toddobaadkiiba shir security council la yidhahdaa jira waxaanu ku qiimeynaa waxyaabaha ugu muhiimsan bal hotspot areaga isleenahay bal dhacdooyin baa ka iman kara ama tension noocaa baa jira iyo qaabkii maaragtay wax looga qaban lahaa iyo sidii looga howlgeli lahaa inta badan aanu xooga saarno taa laftigeega wax badan bay ka qabatay baan aaminsanay golayaasha dhaqanka ama hogaamiyayaasha dhaqanka odayaasha inkastoo marar badan la odhan karo oo beelahada dhinacooga ka timaadaa waxay abuurtaa dhibaato badan oo mujtamac laakiin haddana mujtamaca shaqaday u hayaan iyo waxyaabahay xalliyaan maxkamaduhu ma xallin karaan marka door nabadayn iyo door xasilooni iyo door bulsho isku hayn oo lafdhabar ah ayaa la odhan karaa bay golayaasha dhaqanka ku jiraan waxaa jirtay golo dhaqan oo ay dowladda deegaanku samaysay waxaa loo macnaysan karaa arrintaas inay dowladda deegaanku fahamtay lagama maarmaannimada golo dhaqan oo xasilinta iyo nabadaynta dowladda kala qayb qaata ma isleedahay haddii la awood siiyo oo la qaabeeyo oo la tala siiyo oo loo tala doonto hogaamiyaasha dhaqanka ama odayada inay noqon karaan element xasilooniya xal u noqon kara mushkilado badan oo ijmaaciya ma sidays odhan kartaa xasiloonida ballaadhan ee deegaanka ka jirta hadda inay qayb ka mid a xalkeyga yihiin waad saxsan tahay waa arrimihii ugu muhiimsaneen haddeer kuu sheegayaan ka iloobay guddiga gurtada wax badan ayuu ka qabtay run ahaan odayaal dhaqameed weeye shaqooyin badan oo dowladdu qabanin ayay noo qabtaan arrintaa nabadgelyada deegaankeena kaalin aada u muhiima ayay ka qaateen baan aaminsanahay taa keliya maaha mustaqbalkana waxaan horta waa dastuuriyan oo dastuurka deegaankeena ayuu ku cadyahay waanu asaasnay oo kabineetkana waan ku go-aaminay xeer nidaameed bayaan baa lasoo saaray waxa keliya harsan iminka waa inaan baarlamaanka hoosgeeno oo dhamaystir marka wax dhiba haba yaraatee ayaga inta badan ka awood badan weligiina lama soo kulmin wax badanna runahaan way qabteen baan aaminsanay madaxweyne qaybtii ugu dambeysay fadhigeena ayaan soo gaadhay dhowaan waxaad ka timiday Paraguay
oo aad kaga qayb gasheen munaasabad ay hay-adda UNESCO ku aqoonsanaysay xeer ciise. Arrintaasi waa achievement macnale oo dadka Soomaalida iyo dhaqankoogu u soo hoyatay. Intaanan su'aala kaa weydiin xeerkaas sidii u gaadhay, shaqadii laga qabtay, bal hadda dadkan fursad u helin inay akhriyaan ama aan faham guud ka haysan xeer ciise. xeer ciise koobid yar ugu samee. horta xeer ciise waa xeer aad u ballaaran, laakiin si guud xeerkaayay wuxuu ka kooban yahay si guud 6 qaybood iyo 106 qodobo, sidoo kale 336 qodob hoosaad iyo 444 xeer nidaameed. marka waa xeer aad u ballaaran, laakiin waa xeer ilaa ku dhowaad 600 oo sano jiray weeye. waqti Ethiopia xaalad adag si guudba mandaqada ama adduunkaba culeysyo badan ay jireen. dowladihii muslimkana sidoo kale saldanadihii jiray ay kolaabsi gareeyeen weeye in waqti maaragtay dadku ay isku tashadeen, ay maaragtay inta u bixeen 44 oday oo gande la yidhaahdo, ay waqti dheer intay qaateen xeerka meel city la yidhaahdo ay kusoo saareen. marka waa xeer bulshada 3 waddan ku nooli isku xidha aayahooga, danahooga iyo xidhiidhka ay la leeyihiin bulshooyinka kale ay wadwadaaga yihiin, iyo sidoo kale dhibaatooyinka jira ay ku xalistaan, hoggaankooga dhaqameedna sidoo kale ay ku doortaan. marka run ahaan waa xeer nidaam, waa xeer caadi oo dee nidaamyada dowliga imika markaad ka hadlaysid almost dhammaystiran, qaab dhismeed buu leeyahay. tusaale ahaan gande, guddi, ogaas, xeerarkan waan kugu sheegay, wuxuu leeyahay. goorma taariikh ahaan la qoray xeer ciise? waxaa xeerkaa la dhammaystiray inkastuu kolba kulan markii uu ilaa 50 sano ayaa qoritaan ahaan laysla qaatay oo dee laysla meel dhigay intaa laysla fadhiistay meel, laakiin kolba xaaladaha jira ayuu la socdaa oo kolba maaragtay waxbaa lagu yaal kala duwan dhagaladeeda maqasho lagu daraa. marka run ahaan waa arrin aad u fiican oo saad sheegtay weeye, oo Soomaali ahaan si guud oo xeer maaragtay hadda ciise maahin oo xeer Soomaaliyeed. waxyaabaha inta badan maaragtay intaan ogahayna Soomaalida laga aqoonsaday UNESCO iyo adduunkaba, weliba Soomaali si guud ugu horreeyey buu yahay. marka waxa noo soo kordhay weeye run ahaan in la ilaaliyo oo la xafido oo maaragtay la dabaqo ayaa ugu muhiimsan, oo waxyaabaha loo aqoonsanayo ujeedadeedu taa un weeye. waxay ka dhigan tahay maadaama ay dad badani ka dhexayso oo dadka bulshada ku nool waddanada ay ka dhexeeyaan, uu ka dhexeeyo xeerkani, mudnaanna waa la siiyey si gaara, oo maadaama ay bulsho badan isku keenayo xeerkani, sidoo kale in lagu daydo oo mustaqbalkana laga barto oo laguna xisaabtamo ayaa maaragtay aqoonsi ahaan in hadda imika lagu dhawaaqay. UNESCO inta badan Soomaalida waxyaabaha ku saabsan ee ay aqoonsan jirtay waxay u badnaayeen meelo ama buqcado taariikhiya ama waxyaabo la xidhiidha juqraafi oo maaragtay taariikho hore iyo goobo qadiimiya ah. waa markii ugu horreysaan filayaaye wax qoran oo curin qoraala ama xeerar ama qaab nololeed ama nidaam sidii aad u dhigtay oo Soomaalidu dhexdeeda ay isku maamulaan oo ay qorteen, ay aqoonsadaan. arrintaa inay UNESCO aqoonsato
shaqo nuuceeyaa gashay tallaabooyin nuucee bay soo martay sidee lagu gaadhay in xeer ciise maanta uu yaalo madxafka UNESCO horta waqti dheer bay arrintan soo qaadatay oo run ahaan muddadii la bilaabay in xeerka xaggaa la geeyo jaranjaro ayay soo martay niman maaragtay aqoon-yahan oo xeerkan buugaan badan ka qoray si qoto dheerna daraasaado kala duwan u sameeyey ayaa inta badan fikrada noocana bilowgii isku dayey maaragtay in xeerka la aqoonsado UNESCO la geeyo siyaabo kala duwanna waa la isku dayi jiray hadda kahor marka waqti dheer bay naga qaadatay siyaabo kala duwanna ayaa la isku dayey in laga dhaadhacsho xeerkani inuu inuu ummadda maaragtay ama aadamaha dan u yahay oo la xafido oo daraasado iyaga laftigooda inta yimaadeen soo taabsiya uu meelihii maaragtay xeerkan lagaga dhaqmayey la geeyey kolkol waxaad arkaysay dhaqankii oo tusaale ah ay soo arki jireen oo sidaa qaabka maaragtay ay ku qanceen marka run ahaan dhalinyaro bilowgaba aad u janjeero u dhuun daloolay baa jiray ahayd xeerkan oo buugaano kala duwan qoray sidoo kale dhalinyaro kale oo iska voluntaryana sidoo kale wax badan bay isku dayeen in ay arrintaa siyaabo kala duwan UNESCO loo geeyay hawsha marka si guud dad badan oo iskaashaday iyo fikir in badan soo socday oo waqtigeedii meesha la geeyey oo adduunkana sidoo kale inala qaatay un wey maxaad is leedahay waxa ugu weyn laga dhaxli karo aqoonsigaas inuu yahay maxaad is leedahay xeer ciise aqoonsiga heer caalamiya ee UNESCO in la xafida oo bulshada caalamka loo xafido ay tahay maxay ku soo kordhinaysaa xeer ciise iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka xeerkan qortay ee ciise adduunku markuu aqoonsanayo waxyaabaha inta badan ahmiyadda uu leeyahay haday tahay dhinaca maaragtay arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha ayaa siyaabo kala duwan la iskugu dayaa in maaragtay laga eego dhinacyada qodobo kala duwan ayaa arrimo badan oo run ahaan nolosheena saameynaysa weliba Soomaali ahaan hadda iminka haddii sidii loo baahnaa loo qaato wax badan u tari doona ayaa jira tusaale ahaan arrimaha siyaasadda oo kale arrimaha dhaqaalaha oo kale arrimaha maaragtay arrimaha environmentiga ama deegaanka oo kale waxaad arkaysaa inuu mudnaan gaara siiyey waxyaabo hadda iminka Soomaalidu laftigeedu iskula ficiltamayaan oo macno ahayn beri markay dadku isku baaba'aan kabacdi haddii xitaa la isku yimaado la isweydiiyo wax haba yaraatay ay laga faa'iiday iyo inuu lahaa xitaa oo la isla yaabayo ayaad arkaysaa bilowgii xeerkani wuxuu ka bilaabmay bal culayska jira iyo dhibta jira iyo xiriirka jira ee la leenahay annaga dhexdeena iyo dadkan aanu maaragtay jaarka nahay si loo xalin lahaa sidii loo meermari lahaa ayuu ka bilaabmay marka run ahaan adduunka marka la eego waxyaabaha inta badan in la xafido loo aqoonsado waxyaabahan maaragtay la taaban kara iyo waxyaabahan la taaban karin buu weeyey oo saa sheegtay Ethiopia meelo badan iyo dhaqano noocan oo la UNESCO ay aqoonsatay way jirtaa adduunkana sidaa oo kale siyaabo kala duwan loo xafido laakiin Soomaali ahaan waa markii ugu horreysay hawshani taariikhiyan in ay UNESCO aqoonsatay taana run ahaan waxay ididili iyo hadda imika waxaad arkaysaa dhalinyar badan oo wax isweydiinayso oo xeerkii maaragtay isku dayaya inay akhristaan siyaamo kala duwan marka taa laftigeegu waxay u furaysaa in daraasaadyo dheeriya lagu soo kordhiyo
oo siyaabo kala duwan waayo waad arkaysaan oo dadkii waaweynaayo weliba xeerka garanaya inta badan way sii sii dhammaanayaan dhammaanayaan. ama caqabad hadda jirtaba dee xal cusub loo heli karo si loogu daray aaladaha cusub ee taana laftigeegu dhib ay noo keentay waad arkaysaa oo dee mobile iyo meel kastoo joogsid saa doontid baad u isticmaalaysaa taa laftigeegu waqtiba kuma siinaya inaad waxyaabihii kale ku mashquulsid. maxaad is leedahay cashirka ugu weyn ee xeer ciise laga baran karo ee nolosha dadka Soomaalida ah maanta wax ka bedeli kara mid nooga soo qaboblad waa qodobka ugu caansan ee inta badan ay dadku garanayaan ciise waa ciise ninna nin caaran ma dheer taay run ahaan Soomaali ahaan aad bay muhiim noogu tahay aaminsan. waad arkaysaan maanta tiraa Soomaalidu isma tiriso tiro koobna lama sameynin haddana intaa laakiin mid kasta maanta markaad u tagsid wuxuu ka odhani anaa ugu badan anaana ugu dhul badan ugu badan. marka tahay waxay keentay ficiltan jirin oo negative oo mararka qaar dagaal active noqdo waad arkaysaa buur baa maanta la isku haystaa geed baa la isku haystaa annaga deegaankeena waxaan u joognay meel baa reer idin laba reerood oo maaragtay jaar ay isku baabaasheen oo markii aanu tagnayna maxaad isku haysataan oo magaalana laga gubay magaaladii markaanu tagnayna geed buu noqday oo mara yar maaragtay shiraac lagu xidhay. marka xagga isku tanaasulka sidoo kale soorinta soorinta iyo maaragtay wada noolaanshaha dhiigga arrimaha ugu muhiimsan ee imika inta badan uu detail ka hadlo waa xagga maaragtay dhaqanka dhiigga istaageersiga waxyaabaha oo dhan wax badan baa laga faa'iidi karaa waan aaminsanahay kolley dad badan oo arrimahan inta badan xooga saaro oo daraasado kala sameeyeen maadaama jiraan waxaan hadda imika jiilka jira waxaa loo baahan yahay in bal la fahmo waxani muxuu yahay oo muxuu dan inoo yahay uu inoo leeyahay maanta maxaana laga faa'iidi karaa. halkaasaan kusoo gabagabeynaynaa madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waqtiga aad nagula qaadatay fadhigan waxaan rajeynayaa asxaabta la socotaa buundo inay wax badan oo xogo ama xikmado ama macluumaad faa'iidowle ka bartaan ama ka qalin jiitaan fadhigan aad iyo aad baa umahadsantahay madaxweyne thank you so much idinkana intaan ku kulmayno fadhi kanoo kale ah waa inoo xalqada xigtaa ee tan. salaamu calaykum.